agaasimaha guud ee Banka Dhexe ee Somaliland Axmed Xasan Carwo oo maalmihii u dambeeyay kormeer shaqo ku marayay baanka ka howlgala gobolada galbeedka Somaliland ayaa maanta kormeer shaqo ku soo maray laanta Banka Dhexe ku leeyahay gudaha magaalada Boorama. kormeerka agaasimaha ayaa waxay ujeedadiisu daarneyd dardargelinta miisaaniyad sanadeedka 2018-2019. agaasimaha guud ee Banka Dhexe ee Somaliland ayaa ugu horeen waxa uu ka warbixiyay kormeerkiisa waxaana uu sheegay laantii Boorama ee bangiga dhexe halkaas oo shaqo u yimay aniga iyo tiim aan wato waxaan ugu nimay waxa weeye inaan miisaaniyadii diyaar gareeno sanadka 2019 iyo qiimeynayno hawsha ka dhacday meesha tan iyo miisaaniyadii hore jirtay wixii ka dhiman iyo wixii aan ku daraynaba inaan qiimeyno kala hore wixii aan ugu talagalay say u baxday iyo sida ay soo gashay iyo tii soo sanadka soo socda si aan u sameeyno iyo qiimeyn lagu qiimeeyno shaqaalaha wixii u baahan in promotion la siiyo la dalacsiiyo wixii u baahan tababar wixii arrimaha noocaas ayaa horta aan u nimay laamahan galbeedka aan mari doono soo dhameeyay gabiile insha Allah waxaan u harsan sayl abaan u harsan hawlahan wadnaa hawlaha caynkaas waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shaqaalaha bangiga Boorama inay yihiin laamaha ugu hadalka yar ugu cabashada yar ugu shaqada badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inay laamahaasi ay halkaasi oo ah gabadha maamusho oo maamulka gabadhan aad iyo aad loo amaanay oo aniguna aan u mahad celinayno oo leenahay halkaasi hawsha ka wado intaasi baa maaragtay laanta hawshiisa waxyaabaha ugu weyn ee aan ku hawlanahay waxa weeye inaan lacagta qiimaheeda kor u qaadno shilinka Somaliland oo duruuf adag oo ina soo martay oo lacagtii inay ay noqotay lacag suuqa ka baxday oo in wax ku iibsano wax walba dollar sidii aan kalsoonida lacagta shilinkeena u soo celin lahayd oo sidii bari ahaan jirtay dadku ay garan waayaan dollarka marka loo dhigo maxay lacagtan ay oran jireen inay diidi jireen taasaan doonaynaa oo suuqa aan ka saaro lacagta dollarka ee suuqa wax laga iibsanayo ay noqoto lacag adag oo dibadda wax laga soo iibsado laakiin wadanka gudihiisa in shilinkeena la aamino shilinkeena lagu shaqeeyo taasi baa waajibka ugu weyn ee saaran marba tartiibaan ku wadnaa waan ku gaari doonaa laakiin dadweynaha waxaan u leenahay inay nala shaqeeyaan oo kalsoonaan lacagtooda oo waxaan ay warqad gaarsiin sameeyay ay tahay lacagtaasi lacag adag oo alaabta dibadda ay nooga timaadeen lacagta dibadda ay nooga soo gashay waxaan ugu baahanay wax fara badan oo dibadda ka keenay laakiin tabaadhadeen wadankeena ku beeranaynay iyo haduunkeeni iyo baalashnaheenii iyo kiradeenii markaan ku bixino dollar waxa yaraanaysa wixii ay wadanka horumar ku gaadhaysay inuu dibadda ka keeni lahayn waa Jamaal Umar Tubeec telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada Boorama.